ma aqbali doono in arrimo qabiil laga abaabulo gobolka Shabeellada Hoose. shirkan jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellada Hoose wakiilna ka ahaa gudoomiyaha gobolka iyo afhayeenka booliiska Soomaaliyeed Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa ahaa mid loogu hadlayay shaqaqadii maanta ka dhacday magaalada Marka ee caasimadda gobolka Shabeellaha Hoose. gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose Axmed Cabdi Mudane wakiilna ka ahaa gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay raggii sababta u ahaa shaqaqadii maanta ka dhacday magaalada Marka cadaaladana la horgeyn doono. waxaan rabnaa inaan cadeyno inaan maanta maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada ay ku guuleysteen in la soo qabtay runtii askartii falkaas geysatay lana keenay maaragtay xarunta CID ee ciidamada booliiska runtii maxkamaduna ay maaragtay gacanta ku haydo runtii waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inay maaragtay ay guul tahay. waxaan kaloon rabaa inaan maaragtay u sheego dhammaan bulshada gobolka Shabeellada Hoose ku dhaqan inaysan suurtagal ahayn maalin walba in maaragtay dhacdooyin fool xun oo maaragtay bulshada Soomaaliyeed dhaawac ku ah inay ka dhacdo caasimadda runtii gobolka Shabeellada Hoose ee magaalada Marka. runtii maamulka gobolkuna wuu ka dhiidhiyay ilaa maantana waxaan u taagnayn sidii arrintaas maaragtay u suurtagali lahayd in gacanta lagu soo dhigo eedeysanayaalkii runtii falkaas geystay. cid kasta oo barnaamijkaas runtii ku yeelata saameynna waxaan u sheegaynaa inay sharciga insha Allah tacaala hortagayaan mana dhici doonto cid fal geysatay hadda ka bacdi inay si nabada ugu laafyooto gobolka Shabeellada Hoose. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose runtii oo hawl ballaaran maanta ku dadaalay sidii maaragtay loo soo qaban lahaa dadkan faldambiyeyska geystay. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada dhammaantood runtii maanta oo aan dhigi karo wax badan oo aan looga baranay maanta sameeyeen annaguna insha Allah tacaala waxaan noqonaynaa kuwa mar kastaba ku dhiirigeliya. Cabdifitaax Aadan Xasan afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa cadeeyay in kiiska la soo gaarsiiyay xarunta dambi baarista. sidoo kale afhayeenka ayaa bogaadiyay maamulka gobolka Shabeellada Hoose kan Marka iyo saraakiisha amniga sida ay ugu hortageen shaqaqada maanta. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. waxaan rabaa inaan u tacsiideeyo dhammaan intii maanta ku waxyeelowday gudaha gobolka Shabeellada Hoose iyo guud ahaan maamulka iyo shacabka gobolkaas buu ugu tacsiideynayaa. waxaan rabnaa muhiimadda ay leedahay wada noolaanshaha iyo bulshada Soomaaliyeed inay wada jirto in laga dhex dareemo maamulka iyo sida uu u shaqeynayo maamulka gobolka Shabeellada Hoose ciidanka booliiska Soomaaliyeed isugu xiran yihiin oo ay ka marqaati kacayso falkan maanta ka dhacay subaxii hore gudaha magaalada Marka isla caawa inuu yaalo kiiskiisa oo eedeysane dhibane iyo wax kastana la waafajiyay in gudaha xarunta baaris dambiyada la keenay. taasi waxaan ku bogaadinayaa maamulka iyo dhammaan saraakiisha amniga ee gobolka Shabeellada Hoose. waxaan rabnaa bulshada gobolkaas ku nool iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegno in laga gudbay wixii ahaa aana qabiil iyo isku dagaalan qabiil iyo nooc isku duulid qabiil. maanta waxaynu taagannahay casri loo gudbay in ummadda wada noolaan karto oo la wada jiri karo. waxaan rabnaa cid walba oo dacwo qabta ayadoona qoriga aadin ha aado saldhigga booliiska ee ku dhow. haddii ay ka gaari weyso xarunta maamul iyo madax ay joogto ay kugu dhow inaad gaarsiisato kiiskaaga. cid alla cid isku dayda inay aana qabiil mise qaab qabiil wax u weerarto waxaa la waafajin doonaa sharciga sida caawaba ay hormuudku u noqdeen maamulka gobolka Shabeellada Hoose ciidankooda wada jira nimankii dambiilayaasha ahaa ee labada dhinacba ay ugu soo simeen xarunta baaris dambiyada. gudoomiye waa kaaga mahad celinaynaa. waxaan diyaar ah oo isla caawa soo howlgalay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo aan u mahad celinayaa gudoomiye Shuute iyo tiimkiisa oo ayaguna isla markiiba kiiska baarista ugu dhaqaaqay xeer ilaalintii iyo hoggaanka baaris dambiyada. waxaan rajaynayaa inay ku cibro qaataan dadka hadda qoriga uu garabka u suran yahay ee raba qaab aana qabiil ama ujeedooyin gurcan inay u isticmaalaan. dadaallo uu hormuud u ahaa maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa keentay in gabi ahaanba la soo afjaro shaqaqo maanta ka soo cusboonaatay gudaha magaalada taas oo cabsi xoogan ku abuurtay bulshada iyadoo gacanta lagu soo dhigay shakhsiyaadkii bilowga u ahaa dagaalka. Aweys Muumin Xasan Aweys Okay, raadiyaha iyo telefishinka Koonfur Galbeed, gobolka Shabeellaha Hoose.